maanta halkan waxaa jooga oo ku dhan guddigii sare ee hay'adda naafada qaranka iyo wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Khadija Maxamed Diiriye waxaan maanta kulankan u qabanay in aan marka ugu horeysa ku cambaarayno falkii waxshinimada ahaa ee lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed ee aan dambiga lahayn oo ah goob waliba ka caagan in dib loo geysto oo ah wasaaradda waxbarashada waxaan sida ugu adag u cambaaraynaa falka waxshinimada ah waxaanan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadano gurmadka loogu jiro gargaarka loo fidinayo shacabkii ku noqday ku dhaawacmay isbitaalada jiifa marka maanta ujeedada ugu weyn aan shirkan u qabanay taa weeye waxaanan ummadda Soomaaliyeed ku gubaabinaynaa in laga qayb qaato oo qof walba sida uu awoodi karo intuu awoodi karo ka qayb qaato gurmadka loogu jiro daaweynta iyo daryeelka dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay halkaas iyo faamiliyadooda waad mahadsantihiin